kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotaa email walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo dib uga furmay gudaha dalka Itoobiya iyadoo gobolka Wolketsaka uu ku waabariistay dagaal xoogan oo dagaalyahanada kooxaha TPLF ay soo qaadeen waxaana dhinaca kale dagaalkaasi qayb ka ah Masar, Suudaan iyo dalal kaleeto oo doonaya in ay gabi ahaanba ka taqalusaan xukunka Abiy Ahmed. dhinaca kaleeto ciidamada dawladda federaalka iyo sidoo kale kuwa faano ayaa kusii qulqulahaya furimaha hore ee dagaalka iyadoo TPLFna ay wacad ku mareen in inta ay ka gaarayaan caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa in aysan dagaalkaasi joojinaynin. bilihii ugu dambeysayba waxaa dhinaca kale socday waawaan lagu dhexdhexaadinayo jabhadaha gudaha dalka Itoobiya ka dagaalamaya ee dawladda federaalka kaasi oo ay garwadeen ka ahaayeen midowga Afrika waxayna taasi u muuqataa in ay ku soo dhawaatay natiijo la'aan iyadoo midowga Afrika wali ay isku dayahayaan in ay xiisada dejiyaan. TPLF ayaa sheegtay in mar dambe aysan xabad joojin yeelinin isla markaana ay wada hayaan tan iyo inta ay Addis Ababa ka gaarayaan. dhinaca kale jabhada faano oo iyadana bilihii ugu dambeysay dagaal xoogan kula jirtay dawladda federaalka ayaa iyadana dagaalkeedii waxay u jeedsatay dhinaca gobolka Wolketsaka taasi oo u muuqata in ay iyadana garab ka noqon doonto ciidamada dawladda federaalka ee dagaalka kula jira TPLF. dhinaca kale jabhada xoreynta Oromiya ayaa iyadana sheegtay in ay caasimada Addis Ababa gacanta ku dhigayso maalmahan soo socda iyadoo hanjabadaha iyo sidoo kale dhoolatuska ciidan ay maalmihii ugu dambeysay ba soo bandhigahayeen ayna ku soo bandhigahayeen agagaarka caasimada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. dhinaca kaleetana deegaanka Soomaalida ayaa iyadana maalmihii ugu dambeeyayba waxay marti gelinayeen dagaal xoogan kaasi oo ka socday galbeedka gobolka City. ciidamada canfarta ayaa weerar kala duwan ku soo qaadahayay shacab deegaankaasi ku sugan oo ka tirsan gobolka ama dawlad deegaanka Soomaalida. xasuuq ba'an ayaa halkaasi ka dhacay iyadoo shalayto xisbiyada mucaaradka ee dalka Itoobiya qaybo kamida ay sheegeen in indhaha laga laaban doonin oo arintaasi faragelin lagu sameyn doono xasuuqa ba'an ee shacabkaasi lagu hayo. hay'ad u dooda xuquuqda insaanka ayaa sheegtay in ka badan 700 oo qof in meel ay jaan iyo cirib dhigeen aan la garanaynin kuwaasi oo ka qaxay goobihii ay dagaalku ka socdeen. dawladda deegaanka ayaan arintaasi wali ka hadal. dhinaca kale gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga BB ee hadda talada haya Aadan Faarax oo laga soo doorto deegaanada lagu xasuuqayo shacabka ee garbaciisa iyo sidoo kale candhuufto ayaan wax qoraala iyo wax hadalatoona aan ka soo saarin. shalayto goob uu kula hadlahayay ama goobta xisbiga oo uu war ka jeedinayay ayaasa uusan soo qaadanin wax tacsi ah ama ku aadan xasuuqa shacabkiisa lagu xasuuqayo galbeedka gobolka City. madaxweyne Cagjar oo maalmo ka hor isagana gaaray ayaan wax natiijo ah halkaasi ka soo saarin wax ciidanana halkaasi aanu dirin ilaa xogaraadyo ayaa sheegaya in Abiy Ahmed oo isagana dhinaciisa uu ku cadaadinayo in aan laga hadlin dagaalka iyo xasuuqa halkaasi ka socda iyadoo luuqad adag oo adeegsanayay oo taasi oo shacabka Soomaalida ay si weyn uga xanaaqeen. ra'iisul wasaaruhuna uu sheegay in dagaalka uu u dhaxeeyo Canfar iyo sidoo kale Ciise oo uusan u dhaxaynin Soomaali iyo Canfar taasi oo u muuqata ra'iisul wasaaruhu inuu siyaasadeeyay dagaalka halkaasi ka socda. iyadoo gudaha dalka Itoobiya uu sidaasi u hurahayo ayay wali dalka Itoobiya tabaacigooda waxay gudaha dalka Soomaaliya ku soo daadgureynayaan ciidamo aad u tiro badan taasi oo ay doonayaan inay kaga hortagaan Masar oo la sheegay in fariisiimo ay ka qaadatay ama garoomo ay ku yeelan doonto ama saldhigyo ciidanba ay ku yeelan doonto gudaha dalka Soomaaliya taasi oo Xasan Sheekh Maxamuud xilligii safarkiisa uu u ballan qaaday in uu soo dhaweynayo saraakiil ay halkaasi u soo dirahayaan. dhinaca kaleeto ila wareedyo ayaa sheegaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saraakiil si qarsoodi ah inuu u diray TPLF kuwaasi oo kulan kula qaatay dalka dibadiisa. waxaa sidoo kale idiin soo gudbin doonaa xog rasmi ah oo la xidhiidha arintaasi. waxaa dhinaca kaleeto kulamo goosgoosa ay ka yeelanayaan cuqaasha iyo waxgaradka dawlad deegaanka Soomaalida kuwaasi oo magaalada Jigjiga maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay sawaxan iyo qaylo ku aadan sidii dadka lagu xasuuqayo galbeedka gobolka City loo gaari lahaa. hase ahaatee way adag tahay shacab in ay sabaabulaan oo halkaasi ay ka hortagaan iyagoo cabsi weyn ka qaba dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida iyo ciidamada New Booliska. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsanaya warkeena ku eegayna waxaana studio ay kula sugan saaxiibka Wacane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya. Wacane soo dhow. aad iyo aad baa mahadsantahay. Itoobiya dagaal ayaa ka socday sanadihii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan ayay soo martay. mar hal waji ayuu lahaa oo waxa la dagaalayay TPLF oo loo yaqaanay argagixiso oo dawladdu ay u aqoonsatay. mar dawladdu waxay ku baaqday xabad joojin iyo sidoo kale inay wada hadal la gali doonto TPLF. bilihii ugu dambeeyay waa laga nastay oo dawladdu waxay dagaalka kaliya oo ay kula jirtay dhinaca Bishaangul Gumus iyo sidoo kale jabhada xoreynta Oromiya. bal maanta dagaalkan dib u bilowday ee la sheegayo hubka xataa kimikada in la isku isticmaalayo waa sidee gobolka Wolketsaka
ee xadka deegaanka axmaarada iyo TPL iyo Tigreega. aad iyo aad baa mahadsan tahay horta dagaaladu meelo badan ayay saaka ka horeen gobolka Walkeed oo kelita maaha gobollo kaleeto oo dhaca dhinaca xuduudda deegaanka axmaarada iyo sidoo kaleeto kan Tigreega iyo weliba Tigreega iyo dhanka canfarta labaduba dagaalo xoogan ayaa ka socdo dhinacyadu waxa ay daabulayaan ciidamadii ugu badnaa oo ay rabaan midba midka kaleeto inuu awoodiisa ku weeqo axmaaro diyaar garow ayay waday 3 bilood ilaa 5 bilood ee u dambeysay taasi oo ay ogol lahayd in dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kaleeto wada hadallada dowladda federaalka iyo sidoo kaleeto ciidamada ururka TPLF u socdo in uu fashil ku soo dhamaan doono arrintaasina ay uga faa'iideysan doonaan ciidamadaasi dhan kale waxaa socda abaabulkii ugu xooganaa oo ay wadaan dhinacyadu waxaa arkaynay axmaarada iyo weliba dowladda federaalka Ethiopia in ciidamadii ugu badnaa ay ku daabulayaan xuduudda deegaanka Tigreega iyo axmaarada sidoo kaleeto waxaa iyadana socdo abaabul xoogan oo dhanka canfarta iyo sidoo kaleeto dowladda federaalkuna ay ciidamadoodii ugu badnaa ay ku daabulayaan marka halka waxaad ka arki kartaa in dhammaanba rajooyinkii iyo sidoo kaleeto natiijadii laga sugayay inay ka soo baxdo wada hadallada u dhaxeeya dowladda Ethiopia iyo weliba ururka TPLF inay gebi ahaanba ay kusoo dhamaatay eber kadib markii xooga TPLF ay codsadeen marar badan in midowga Afrika aysan ku aamini karin talada iyo sidoo kaleeto go'aanka iyo masiirkooda ku aadan inay la heshiiyaan dowladda Ethiopia iyo weliba in ay ka go'ayaan ama ay la dagaalayaan marar badan waxyaabaha la isku hayay wuxuu ahaa sidii gobolkan la isku haystay axmaarada iyo Tigreega dhaxdhaxaad looga noqon lahaa isla markaana loogu wareejin lahaa gacanta Tigreega maadaama ayagu ay sheegtaan inay leeyihiin isla markaana 30 sano 40 sano u dambeysayba uu ahaa gobol Tigreegu ay leeyihiin laakiin arrintaasi gabi ahaanba waxaa diiday dowladda federaalka Ethiopia waxaana ay sheegtay in gobolkaasi ay dagaal ka xigto waxaa hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda Dhamaka Mkenen wuxuuna sheegay in uusan marnaba ogolaanaynin in gobolkaasi gacanta ururka TPLF galo isla markaana haatan ay ka xigaan dagaal marka arrintu waxaad ka arki kartaa in waxa la isku haysta uusan ahayn siyaasad kore iyo sidoo kaleeto in xukunka wax la mid ah la isku haysto waxaa la isku haystaa masiir dhuleed taasi oo ayadana gadin karta xaaladda dalka Ethiopia waxaana saaka subaxnimadii hore lagu waabariistay magaalada Kobo oo ka tirsan galbeedka gobolka dhinaca xuduudda dhinaca Tigreega iyo axmaarada xigtana gobolka Walkeed marka halka waxaad ka arki kartaa in dhibaatada meeshaasi ka socoto ay tahay mid saameynteeda leh dadka deegaanka oo nagula xiriirna waxaa noo xaqiijiyeen in gebi ahaanba saaka subaxnimadii hore ay ku waabariisteen xaalad aad u adag iyo madaafiic hoobanayso ciidamada dowladda dhankooda waxa ay haatan ku sugan yihiin iska caabin walow dowladda federaalka Ethiopia aysan wax wara arrintaasi ka soo saarin markii laga reebo in maalmihii ugu dambeysay hanjabaado kulul iyo luuqado adag ay u adeegsanaysay ururka TPLF oo saaka war ka soo saartay dagaalka halkaasi ka dhacay waxay sheegeen inuu yahay dagaalkani bilow dhammaadkiisana uu yahay caasimada oo gacantooda soo gasho wagaag dhinaca dowladda federaalka waxaa la ogyahay in dagaalo xoogan ay ku socdeen oo looga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha iyo in xukunka ka daga ay codsan hayeen oo dowlad wadaaga la dhiso jabhado badan ayaa gudaha dalka Ethiopia ka dagaalama oo gaaraya ilaa 7 jabhadood ayaa hadda gudaha dalka Ethiopia hubka qaatay oo dagaal wada soo lama dhihi karo hadda dowladda federaalka way fashilantay xukunkeedii oo waxaa loo baahan yahay in isbedel la sameeyo oo ninkani uu meeshaba dhaafo horta Santiago markii hore wixii la isku haystay dagaaladu u bilowdeen waxay ahayd xukun iyo sidoo kaleeto in aysan Abiy Ahmed xukunkiisa ku qanacsanayn laakiin arrintu hadda way ka tagtay waxaan ognahay in uu bilowday dalka Ethiopia masiir dhuleed oo ognahay canfar iyo Soomaali waxa isku haysto axmaara iyo sidoo kale Tigre iyo sidoo kale canfar marka meelaha waxa ka socdo Bishanguul iyo axmaara iyo sidoo kale Oromo marka waxyaabaha haatan socdo waa ka weyn yahay xukun in laga tago Abiy Ahmed hadduu maanta xukunka tagana ninka kale imaanaysa shaqo adag ayaa u taalo inuu dagaalamo inuu ciidamo geeyo meel walba in dhibaato ay ka dhacdo qowmiyad ayaa la isku cunayaa 700 oo Soomaali ah ilaa iyo xilligan jaani ciri meel la dhigan lama hayo wala afdubtay meel la dilay lama garan karo in ka badan 1500 oo qof ayaa ka qaxday hal magaalo oo kaliya magaalada Candufta marka dhibaatooyinka ka socdo gudaha dalka Ethiopia waa mid aan ilaa iyo xilligan la saadaalin karin xaaladda meesha ku dambeyn doontana waxay noqon doontaa si filwoogi Soomaaliya ka dilacay 1991 ama 1991 ee dawladii dhexe lagu burburiyay ee wadanku u kala yaacay ilaa iyo xilligan mushkiladii markaasi bilaabatay ka bilaabay xalin laayay
ayaa haatan Ethiopia ay haatan waaga socotaa. mar haddii aad wacano Ethiopia sidaa tahay dowlad deegaanka Soomaalidana aan ognahay xaalkiisa iyo muddo badanba inay naftirkooda dadkoodu ay ku dhamaadeen xornimo raadin iyo gooni istaag ma ka faa'iideysan karaan bay kula tahay burburkan hadda Ethiopia ka dilacay maxaase iyagu oo faa'iido ugu jirta maxaase khasaaraha oo iyagu ugu jira mar haddii waxa weeye Ethiopia ay kala yaacday soo ma ahayn in xuduudahooda la adkeeyo Santiago horta xisbi kasta oo mucaarada ama urur kasta oo maanta laga dhawaaqo dowladda deegaanka Soomaalida ma helayo wax taageera waxaa la ogyahay ONLF in lagu khasaaray oo in ka badan 30 sano ay ummaddu daba taagnayd heli hooba la garab taagnayd qaranka laga arunayay dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan naf iyo sidoo kale maalba loo huray laakiin gebi ahaanba lama aamini doono urur kasta oo laga dhawaaqo dowladda deegaanka Soomaalida wayma in madaxweynaha haatan talada haya uu amro ciidamada uu ku amro in xuduudaha la xiro isla markaana ciidamadani ay noqdaan kuwa ayaga laftirkooda ka soo horjeeda dowladda federaalka Ethiopia laakiin inta taas wax ka hooseeyo shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida marna ma ogolanayaan jabhad ilaa xilligan banaanka istaagto oo dhahdo waxaan la dagaalamaya Ethiopia cid ka aaminaysa iyo cid yeelaysa toona ma jirto galbeedka gobolka City xasuuqi dadka lagu xasuuqayay maxaa u dambeeyay iyada ra'iisul wasaaraha mar uu hadlay shalayna wuxuu sheegay dagaalka inuu Soomaali u dhaxaynin iyo Canfar wuxuu u dhaxayaa buu yiri beesha Ciise iyo sidoo kale beesha Canfar ayuu u dhaxayaa buu yiri bal luqadda iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii dalka dhan in uu adeegsado oo Soomaalida u kala qaybiyo maxaa sabab oo maxaase u dambeeyay dagaaladii ka socday galbeedka gobolka City arrinta kala qaybsanaanta ra'iisul wasaaraha waxaa dhagta ugu shubay Mustafa Cagjar iyo sidoo kale Aadan Faarax oo ah ku xigeenka xisbiga BB halka waxaa ku daliila dhibaatadu waxay socotay in ka badan ilaa iyo bil hadda inta wajiga labaad ee dadka lagu xasuuqayo wajigii hore waaban ogeyn oo waxaa la xasuuqay saraakiisha ciidanka dhammaanba taliyaashii ciidamada liyu booliska in ka badan 1500 oo askari ayaa lagu dilay magaalada Garbaciiso kalita waxaan ognahay in gawaaridii ciidanka xataa koleeto ay la qafaashay saraakiil in ilaa xilliga jaani cirib meel ay dhigan lahaynin oo Canfarta may dishay مالجيسي ورلوهين marka luuqadan uu adeegsanayo ra'iisul wasaaraha waa mid jileeceeda laga arkay dhanka dowladda deegaanka Soomaalida oo aan gacantii looga baahnaa aan ilaa xilligan qaadin hadii arintaasi ay qaadi lahaayeen dagaalku wuxuu noqon lahaa Soomaaliya iyo Canfar dowladda federaalka Ethiopia si degdeg ah ay u soo dhaxgal lahayd dhibaatada halka ka socota ugu dambeyntii jabhadda xoreynta Oromiya waxay sheegeen in magaalada Addis Ababa ay 10 kilomitir u jiraan soo la isma dhihi karo jabhadda xoreynta Oromiya iyo TPLF way og yihiin oo ballantooda waxa weeye in Addis Ababa la iskugu yimaado oo halkaasi laga saaro ra'iisul wasaare Abiy Ahmed marka la eego hanjabaadaha iyo sidoo kale dowladda ay bixinayeen ururka OLA waxay u muuqataa in heshiiskii 2021 ay gaareen ururka TPLF iyo ayagu inuu haatan u yahay mid midho dhalay isla markaana labada dhinacba heshiiskoodii burburay haatan dib loo xoojinayo arintaasina waxaa ka shaqeynaya dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ognahay in ay saraakiil si qarsoodiya ula kulmeen ururka OLA iyo waliba ururka TPLF waxayna kula kulmeen meel ka baxsan wadanka dibadiisa waxa saraakiishaasi garwadeen ka ahaa horboodayena Mahad Salaad oo ah hay'adda sirdoonka qaranka NISA taliyaheeda waxa sidoo kale la sheegaya in meesha ay ku kulmeen ay ahayd dalka Djibouti magaalada Djibouti waxayna kulmeen bishii aynu soo dhaafnay horaanteedii marka arinta halkaas waxaad ka arkartaa in heshiisiintan TPLF iyo ururka OLA iyo burburinta dalka Ethiopia in ay qayb ka yihiin dowladaha Masar Suudaan iyo sidoo kale Soomaaliya marka Ethiopia xaaladeedu waxay haatan ku jirtaa meeshii ugu xumayd abid lamana saadaalin karo siyaasadda dalka Ethiopia sida haatan ay ku socoto dawadeel haddii aan dib inoo xusuusino dagaalada dalka Ethiopia ka socda iyo jabhadaha ka dagaalamaya waxaa kamid ah jabhadda xoreynta Oromiya oo u dhaqaaqda xorriyadda deegaanka Oromada iyo sidoo kale jabhadda Bishaangul Gumus oo ayagana u dhaqaaqda shacabka Bishaangul Gumus jabhadda Gambela oo ayadana u dhaqaaqda xorriyadda Gambeelaha jabhadda Faano oo ayagana u dhaqaaqda deegaanka Axmaarada xorriyadiisa iyo dhinaca kale Tigray oo ayadana dagaal xoogan ka wada waxaa sidoo kale ayadana jabhad looga dhawaaqay deegaanka Canfarta oo hadda dagaal kula jira dowladda deegaanka Soomaalida waa taasi ayaana u muuqata in gabi ahaanba gudaha dalka Ethiopia ay hurayaan balse waxaan cadayn ajandaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida ay kala yihiin dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo dowladda deegaanka Soomaalida 30 sano in ka badan uu dagaal ka socday gudaha dowladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo lagu raadinayay madax banaani iyo dal madax banaan inay noqdaan shacabka dowladda deegaanka Soomaalida
taasi oo gabi ahaanba markii dambe xoogga dalka Itoobiya la iskugu geeyay oo meesha laga saaray ururkii u dagaalamayay xorriyadda dowlad deegaanka Soomaalida waana midda hadda kaliya ee nabadgelyada ay ka jirto dhinaca markii laga feeriyo qowmiyadaha iyo sidoo kale maamulada dowlad dalka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyay jabhado iyo sidoo kale waxa iyagana gudaha u soo galay kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalka Soomaaliya hase ahaatee ciidamada New Booliska oo dadaal dheer ku bixiyay ayaa gabi ahaanba ku soo afjaray in ka yar 20 cisho hadal haynta weyn ee maanta la hayaa waxay tahay bal ajandaha iyo sidoo kale qorshaha dowlad deegaanka Soomaalidu ay ka yeelanayaan maadaama dalka Itoobiya la isku haysto qowmiyado iyo sidoo kale dhulalba oo dagaaladuna ay hadda moodaa inay isku bedeleen civil war maadaama markii hore uu ku bilowday xukun diidka iyo sidoo kale tabashooyinka siyaasadda sare ee dalka ugu sareysa ee uu ka mid yahay xukunka ra'iisul wasaaraha iyadoo gabi ahaanba TPLF iyo sidoo kale oromadu ay diideen in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay hoos yimaadaan hase ahaatee hadda waa isbedelay oo waxay u muuqataa in lahaansho dhuleed iyo sidoo kale civil war iyo qabiilo hadda ay isku qabsatay dalka Itoobiya balse qorshaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dhinacna u cadayn iyadoo dadka dowlad deegaanka Soomaalida iyo siyaasiyiinta aqoon-yahanka dowlad deegaanka Soomaalidu ay si weyn u hadal hayaan Mustafa Cagjar oo la sheegay isagu inuu jaabka ku ritay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wax qorshaana uusan ka lahayn adkeynta iyo amniga dowlad deegaanka Soomaalida iyo goon istaaga qowmiyadaha dalka Itoobiya intooda badan ay ku riyaaqayaan daawadayaal intaan warka xigaan ka gaadhayno waxaan idinka tagaynaa amaan Allah